بسم الله الرحمن الرحيم. موقف كدولة الصومالية قوانكي دبو دقيدة دقيسيقة ماركتي محكمة ICJ دا وحا هوري وشيغي رئيس الوزراء كحيين كصوماليا maalintii warqada maxkamadda ka timid ayuu halka ka cadeeyay mowqifka dawladda Soomaaliyeed ani waxa kaliya aan ku darayaa waxay tahay maxkamadan ICJ waa maxkamad madax banaan oo xor ah marka arinta dib u dhigista dhageysiga maxkamaddu uma eexanin Soomaaliya go'aankay wadatay oo ahaa bisha 4 November in la dhageysto lagama ogolaan Kenya oo iyadana maaragtay rabtay in September sanadka soo socdo 2020 in keeska dib loo dhigno lagama yeelin marka Kenya uma eexanin waxay maxkamadda iyadii ayaa isu eexatay oo keeska ayay u eexatay waxayna rabtaa in labada dawladood si murun la'aan ah meeshii u yimaadaan ee keeskii waqtiga ay u dhigtay bish 8 maaragtay halka ay wada yimaadaan iyagoon murun ka jirin tan ku saabsan gabadha maaragtay looyaradeen ah gabadha waa gabar Soomaaliyeed Muna Sharma keeski maalintii ugu horeysay ilaa iyo goordhow ay ku jirtay muddo 4 bilood laga joogo ayaa ay madaxweynaha la soo hadashay waxay tiri madaxweyne shaqo ayaan ka helay World Bank marka sidaa darteed waan ka cudur daaranayaa marka Muna qof raacdeen karna male waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadinad ah oo runtii istaahisha in loo abaalgudo maaragtay in la yiraahdo Muna meeshi waa laga saaray waa ceeb bay Soomaalidan u tahay tan ku xigta oo iyadana meelaha la isla marmaray la leeyahay looyaro cusub baa la hayr gareeyay oo la Soomaaliya ay dooratay waa been looyaradeeni waa kuwii maalintii ugu horeysay aan keeska badda geynay 2014 waa kuwii keeska ku dhex jiray waa kuwii maxkamad yimid oo daafacay waa kuwii dacwadii soo qoray waa kuwii haddana maaragtay u taagan inay keeska daafacaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa khalkhalka iyo maaragtay maxkamadda la siyaasadeynay maaragtay yaan lidinku maaragtay niyajibin keeskii meeshii buu yaalaa maxkamaddu yaalaa waxa dhiman aad ka warqabtiin wuxuu yahay waa dhageysi un kaliya dacwad dambo la qoraayo oo looyaro maaragtay si qoraayo jawaabo la isu diraayo waa dhamaatay ilaa maxkamadan waxay leedahay markuu gooreyso qoraal baa jiro qoraaladii ayaa inta socdeen hadda qoraaladii waqtigooda waa soo dhamaadeen go'aankii maxkamadda ugu dambeeyay ayaa lagu soo sheegay wax dambo qoraal hal isdhigay oo laga ogolaanayo qolo laga ogolaanayo ma jirto sidaas darteed maaragtay keeskii wuxuu marayaa feeskii ah dhageysiga taana maaragtay waa bisha soo socota bisha sanadka soo socota ee bisha June 8 ilaa 12 2020 haduu ilaahay raado wabillahi tawfiiq.